قصة ما أنت يدها ما قصة أوجبة وقصة جيجينا كدعضة وقصة أنت أنا تقول إنارت أنا يا رولالكين إبراهيم أسود واد إبراهيم سودو ولالك إبراهيم فريسو أدنكو سلامي إبراهيم وندوهي سودو برنامج مسامح كريم إبراهيم وحكم دي شغالة جامعة إبراهيم جامعة سوت هنا جامعة أسر كورن هوليدا إيجورن قويسكي دمان تدوي في عين هولو كوما كلا دجنا ها الحمد لله إن هذا باقود بكينا كسان قلنا إبراهيم سبت حكى ويبيد قصة إبراهيم واحد دارنتها هي سجى إنتيس خلاف وين وساق على دحمري مدة سنة جاري سنة سجى إنتيسو ما هو هذا أنا ما ديك شكل دونا قصة سيتها هي إبراهيم وحر علي قبل لي يرهدو ناهدا دأديدنا واحد شرتا أفري لا تنصروا وحكو ضري لين دأدي شيء شرتو لحدن شر يدا دأديدو أفري لا تنشر قفكو سينا ولحدن شر أديك إبراهيم ودأدو يمسجر راح تشيل ستة هي كنت وكوي هنا وكوي يا إبراهيم وحي إبراهيم واحد شرا صدقي كنت تنشر نكو كدر قبل سنة ولحدن شر هذا ناهدا وقبل وروح بدن وناكسن أخلاق له ما نربتني جورستو ويكديدي خلاف أياك لا دحق لي يدي أبيه حسكدي إنه قنعيو إلا وكجاره هير أن أوران كرناد ده وقصبي سكستبها طبعا وكو قنعيه قبدي إنه جورستو إنك اللي شركة إما كل دادي سوا صدق اللي شركة في اللي شركة مالها ناهي ذوي جورستي نفس الحمو نينكي قبده وحقوي تضبع شو وانكو أبيتكو قصباطة كدب نو صفري وارهن ويجرتا سما محو فرينا وارهن نادية وحاو دعي أراس في عن كدب وحاو يقولين مقالة للعي اسكندرية كدب تدبع عشو هالكاسي تدبع عشو سو جوغين مركي تدبع عشو سو جوغين ويسو نقدين قبدي بقوريغا نوهو كاني يساقونا ويسكا نقدي يساقونا وحبا نو شيغين waxa dhacday marka gabadhayda markastoo nin u keeno aan ilaahdo ninkan waan ku siinayaa way diidi jirtay ilaa ay imankana way diidaa ilaa ay imankeynanteeda wadaba socdaa marba nin kastoo fiican aan isiraado u dhaqi karaya ayaan u keena waana iga diidaa 4 hablood ayaan dhalay 2 waa la qabaa oo waxay leeyihiin caruuro midna iminka la guursanayaa midna waa naadiye waa joogtaa inantii ugu yareed iminka waa la soo doontay waana la meersaday ka ilama haboonayn iyadoo tii weyneed ay joogto inaan tiireed aroos u sameeyo oo aan siiyo aniguna markaa waxaan ka cadhoodaa inay hablo haa ilama hadasho kay aragtana way dhaaftaa way cadhaysan tahay oo salaantayga ma qaado waxay joogtaa guriga eedadeed kadibna markaan 20 casho kadib adigu masiiro weydiisay inaad xogaa gaf ka gashay ama dambi aad ka gashay inantaada waan dareensanahay inaan gaf ka galay inaad dulmidayna dareensanahay waan dulmiyey gabadh 24 jira ayaad waxaad ku dartay 60 jira oo waliba haddana 27 la soo qabay iyadoo la soo furay lagu keenay ولسه جاهي هنا خالد كجلي وأنا خالد ويكوسمي وده فرسني وأنا أوجهي لكن يدو جور كتير هالي بيكاهي مركا جوان كي أنا جوان كو قصبي أي كو أقولاتي أتوقع سيدكو كنتين أدو جور سكبر هذا نين لحدن شراء وهذيك بكاوين وين عادي مركا واحد كستود عيبة ويجا أقولاتي يجا بشيني جور ست يدا أيا كاق بشي مركا مياه مساعدك كو قصبي مايا ما خصبن مايا واد قصبتي مايا ما خصبن تكير با حريتي ku guursatay gurigaagu waa dimuqraadiyad macnaha gurigaagu waa dimuqraadiyad sidoo loo rabitaankeeda ayay ku guursatay adigu noloshooda ma farageliso mid walba dooqeeda ayay la timaadaa waan fahmay horta marka hore waan kaaga mahad celinayay maashaad barnaamijkan aad timid si kastay gabadhaadu kugu soo noqon saxda barnaamijkan dhexdiisa waan kugu caawinayaa bal iyadana aan eegno أنا وضع أجنو بليني أقلاتي ضلب كي عن كذا البضي إلهي وحن كرجيني هنا أقلاتينا حلقة شاشة دايق
kusoo dhawo barnaamijka naahida waan dhowahay waa mahadsantahay ahlan wasahlan naahida iga waran xaalkaaga alxamdulilah waa wanaagsanahay iga waran maxaad qabataa se maxaad ka shaqaysaana waqti xaadirkan anu ma shaqeeyo ma shaqaysid maxaad barateen adigu markaa cilmiga beeraha cilmiga beeraha weli shaqa maad helin iminka miyaa may weli waan raadiyaa ma lagu guursadeena haa iminka miyaa lagu qabaanaa may waa laysoo furay iga waran xidhiidhka qoyskiina idiga dhexeeya iyo walaalaha way fiican yihiin maasha allah haa alxamdulilah hooyo ma nooshaynaa haa ma joogtaa haa way joogtaa xidhiidh fiican baad wada leedihin soo maha haa xidhiidhkaygu wuu wacan yahay aabbana iga waran xaalkiisa seenan xidhiidhkiinu wanaagsaneen maxaa dhacay maxaa sababayna dhib khusaysa guurkaygiiyo waxaas sabab nooceeya ayuu guurkaaga u lahaa markaa aabbaa isagu mar walba guur buu ii soo bandhigi jiray aniguna guurkaasaan yara diidi jiray markaasaasaan isku khilaafna anigay aabbahay ma garanaysaa sababtaan kuugu yeedhnay barnaamijkan may ma garanayo qof ka cadhaysiiyey qof farxad geliyey qof fikirkiisa ku cabirta jeclaan lahaana inuu raargelin sameeyo adiga innaba qof maskaxdaada ma ku soo dhacaya may sidaa awgeed mar labaad ayaan kaaga mahad celinayaa sidaad ii aqbashay barnaamijkan aad qayb uga noqotay runtii aniga maaha qofka soo dalbaday qof baa jira adiga ku doonaya aniguna dhexdhexaadiya ayaan ka hay inaan fariintaa ku soo gaarsiiyo qofkaasina wuxuu doonayaa inuu kugula kulmo istuudiyahan barnaamijkan aan ku guda jirna waxaa la yidhaahdaa almusaamax kariim qaada cafis musaamax kariima waa barnaamij fiican hadda ma doonaysa inaad ogaato haa waan doonayaa shaashaddaas ayuu ka dambeeyaa shaashaddaa egbal aabbo miyaad garanaysaana haa waa aabbahay oo isaga kadii sheegaysay inaad iskhilaafteen oo xoogaa isku yarcadhaysan tihiin soo maa haa in yar waxoogaaya in yar muddo intee leeg baad imika isku cadhaysantihiin aydan wada hadal waxaan iskhilaafsannahay sanad ma intii guurkayga ka dambaysoo dhan inooga sheekay qisada haddaba inoo sheeg si wuxuu jiraan siduu igu sheegay sheekada aniga ima cajibo gelin inoo sheeg sidaan maqlay yani inuu kugu qasbay guur aad raalli ka ahayn aabbaha da'diisu ay tahay 53 jir ninku kugu darayna ay tahay 60 jir haa aabbaha wuu ku qasbay soo maaha may si toose imuu qasbin laakiin markii hore wuu igu dhiirigeliyey in badanna wuu igu soo celceliyey sheekadan ilaa aan markii dambe kaga qancay oon anna guurkiisidii ku yeelay dee waana dareemi kartaa haddii waalidkaa ku dhahda ducadaydu waa taa inkastoo aanay fiicnayn in gabdhaha la qasbo waa in ayagu xorriyad u helaan rabitaankooda ninku kugu daray nin hanti haysta miyuu ahaa haa wuxuu ahaa qof hanti fara badan haysta wuxuu ku qabay muddo 7 cishaa soo maaha haa 7 oo muxuu kuu furaynaa aniga awalba waa lay qasbay laakiin dhibtu dhankiisay ka timid markii dambe waan gartay kadibna aabbaha baad u cadhootay waayana ma weydiisay sababta waxaan ugu cadhooday si aanu guur labaad iigu qasbin laakiin siduu isagu noo sheegay waxaad ugu cadhootay markuu ku guuriyey ninka 60 jirka waanaad ka xumaatay nin intuu ku guursay 7 cisho haddana ku soo furay haa si weyn dhaawac buu maxaa ka xanuun badan waalidkaa oo kugu qasbay qof haddana isagii noloshaadii dareemi waayuu ku xumeeyo iminka adiga da'daad waxay jirtaa 25 jir ninkaa markaad isguursateen ma 23 jir baad haydna may 22 jir baan ahaa markii ninkaa lay siiyey waan gartay waalidkaa fariin ayuu kuu soo diray ku akhriyaana ma fariin buu ii soo diray wuxuu ku leeyahay aabe inantayda qaaliga ahayday naahida agtaadaan soo fadhiisanayaa si aan warqadda kugu akhriyayso inantaydii naahida aabe waan ogahay inaad diyaar u ahayn inaad dhegaysato maanta khaladaadkayga saan kugu sharaxi lahaa anigoo ah khaladkan kaa galay inaan kuu guuriyey nin kaa weyn waanan ogahay sababteeda inaan anugu leeyahay oon dhaawac weynna kuu geystay inantaydii qaaliga aheeday aniguna taas waa ka qoomamaynaya aabe waan ogahay inaad wakhti adag aad soo martay
wax badanna ay kaaga lumeen aabe laakiin inantaydii sidaad adigu moodayso aabe anigu hanti kuguma bedelan kumana iibin anigu aabe waxaan kula jeclaa nolol wanaagsan waxaana ninkaa kuugu daray aabo waxaan ku fakiray in aad ku noolaato maanta nolol heersara ninkaasna hanti buu lahaa ma arkaysaa maanta ka fakirayo laakiin sidan lafteedu waaba qalad waxaan malanayaa isagu mala ninka muu anigu ma garanay ninka aabun baa anigu waxaan u haystaa aabe inay hantidu ee daryeel tahay sidaasaanan kula jeclaa in hanti leenaad guursato aabe inantaydii waanan ka qoomamayey inantaydii dhibka aan kuu geystay laakiin sidaan anigu u malaynayay iyo sidaan kula rabay midnaba maysan noqon inantaydii waxaan barnaamijkan aan kuugu yeedhay waxaan kuu sheegay inantaydii inaad tahay inanta keliya anugu jeclay adduunka aad baanan ugu xumahay fogaanshahaad iga fog tahay inantaydii waanan qiranayaa inaan anigu khalad kaa galay adiga isaamax inantaydii qaaliga aheeday inaad iga fogaato ma jecli haddaan xumaadiyo haddaan fiicanahayba mar leba anugu aabbahaa baan ahay waanan ku jeclahay wax kastoo dhacana waxaa tahay inantaydii ina saamax inantaydii والمسامح كريم sidee kula tahay adiga wax kastoo dhaca isagu waa aabbahay sidoo aabbaha kuu jecel yahay ma u jeceshay adigu haa dabcan sow aabbahay maaha qofna aabbihii ma nici karo siduu noo sheegay aabbaha guriga markaad timaado xataa aabbaha lama hadashid oo ma salaantid anigu runtii dabeecad gaaran xaafadda ka leeyahay mana yihi qof hadal badan sida walaaladayna intaan fadhiisto dadka in badan uma sheekayn karo waan soo galaa waana iska baxaa iyagaaba igu dhahdaa waana soo gashaa waanaad baxdaa un runtii mararka qaarna iyo walaaladay haddaan sii baxayo waan la yara hadlaa waan ogeysiiyaa inaad ka fogaato haa maxaa sababaya inaad ka fogaato aabbaha macnaha kuu qasbaanaa haa aad isaga dabeecaddiisa sidaasa haye ibraahim la hadal inantaada oo hadallo fiican kula hadal siday noo sheegtay inantaadu kuma necba adiguna aabbaheed baa tahay iyadu noo sheegtay waa aabbahay wax kastoo dhacaba aniga mar kastaba waa aabbahay bay leedahay inantii la hadal aniga oo inantaydii ma nabcin maba nici karaba waayo dawaaba inantaydiiba aadna waan u jecelahay ma qofaa ubadkiisa nici karaa sida runtiiya waxna waan ku khasbaa oo waan ku adadagahay mararka qaarkood laakiin iyadu waxay u qaadatay inaad necab tahay ood ku dartay weliba nin da'diisu ay jirto 60 jir laakiin way iga aqbashay marka ninka ku darayay oo raalli bay ahayd isbaan fahmin baan malanayaa ma waxaad inantaada ku daraysaa markaa mid adiga kaa weyn haa iyadu iga oggolaatay naahid ma maqlaysaa way fiicnay inay rabitaankayga ahaato laakiin may ahayn wuu kaaga cadhaysiyey weliba soo maha haa aad anigu dhib baan u arkay haddana hadalka aabbahay ayuun baan waaya meel aan ka maro u sheeg la hadal waa kan sababtaad ugu xanaaqsan tahayna u sheeg aabba adigu mar baad i qasabtay laakiin iminka ma raba inaad qasabtid anigaa dookhayga ciyaaraya xataa haddii aanan guur rabinba laakiin aabbahaa wanaag buu kula rabay siduu isagu noo sheegay wixii iminka laga bilaabana inaanu soo dhex gelin dookhaaga ayuu sheegay aniga iminka markii la isoo furan gurigayga imidna aabbahay halkiisii unbuu ka bilaabay maalinba nin cusub buu ii keenayaa anna ma rabo sabab baad u dedejinaysaa iranta ma guriga ayaa culis ku haysaa doontay tii ka yaraydna maalin dhaweyd baan bixiyey oo waa mise jir iyadu way ka yartahay iyada marka ma iyadaad doonaysa inaad ka horreysiiso tayar mar labaad ceeb ahayn haddii inantii ka yarayd curaddiiba iyadu maya midun baa ka yar iyada mid baa ka weyn mise labaa ka weyn iyada markaa maya labaa ka weyn iyada laba carruur baanay leeyihiin iyo guri tii yaradna iminkaan bixiyey oo waa mise jir markaa iyadu waa 14 jir oo ma 14 jir baad ku guurisay markaa weliba dunida maanta la joogo nahay dhaqanka beeralayda inantu 14 bay ku guursataa war heedhe hablahana miyay ku dhibeen ma culis bay kugu hayaan maya imay dhibin maxaad kala degdegaysaa markaa noloshiiba hadda bilow tahay hablaha yar marka ma waxaad doonaysaa inay gurigayga dhex fadhiyaan ha joogaan soo carruurtaadii ma aha maya wax wanaagsan kaa khaldan adiga habluhu sidoodaba inay hore u guursadaan waayo ama guriga kaaga jirto oo ma sidan baa farxada 14 jirkii baad leedahay xataa waan guuriyey carruurnimadeediiba miyadaa ka gudubtay saddex u wadaana waa khalad sidaasi waan yaabanahay hey naadiya soo sax maaha soo saan sheegaya sax maaha waa run sida sheegaysaa
aabbahay markuu ku imaado wuxuu ku odhanaya maado inta leeg bad guriga dhex fadhida kuwii kaar yaraa baa la guursaday adigana waa inaan ninkuu doonaa marka isaga waxa ku weyn inaan guriga ka baxno xataa mustaqbalkayga cidduu noo dooraya inaad hablaha saan kula dhaqantaa khalad weeye haddayse dooqooga ha ciyaaraane 24 jir baad 60 jir u guurinaysaa oo 60 jir baad waa ku sideesad wax u wadaanaa hablaha dooqooga u daa iyagaa garanaya ma inaad dejiso hablaha cadaadiska badanna ka yaree aabba tahay waxaan doonayaa inaan nolol u sameeyo kuwa kaleba waa la soo doontay sidaasaan ku bixiyay waana iga ogolaaday naahida waad qasabtay oo tan kalena waad seed wax u wadaan uu garan maayo hablahan faraha kala bax arrintooda adigu waa inaad jeclaataa ood siisaa maxay daryeel aabbanimo bes haddaba wallaahi hablahayga ma nabe waan jecelahay hablahayga aad baan u jecelahay bes haddaa kaluu saan arkayno khilaaf weyn labadiina idinkaga dhexeeyo sidaasna uma sii weynaa naahida eeg aabbaha oo la hadalo waxaad tidhahdaa aabbahay baa tahay oo anugu wax dhibaataa kuma qabo oo waan ku saamaxay aabe والمسامح كريم وما عرسنا أباها يا نبو والمسامح كريم دي والسلام أباها أو كله أرتا أنت أنا لفرين جدار كان واحد راضى مسامح كريم هاي إيشك واحد هذا أبا ينوان كسامحي والمسامح كريم دي أبا أنا جوان كسامحي حمانك وما قبل لكن مردن بيقول هاي قصبين ما مغلسة وحي قبله كل هذا هاي معي كتيرنا وين مغلية سكشريا أنا قاعد أقول خلاص عنينا هاي كده المسامح كريم مسامح كريم idinku adigu weliba tusaale waxaad u noqonaysaa aabbo loo dunida joogaa adduunweyne oo dhanna waa lagaa daawanayaa gabadhu xorriyad bay leedahay go'aankeedana wadataa waalidkeedna waano iyo toosin buu ku leeyahay inay gargaaraan una isteexeeyaan sida khayr go'aanka kaba dambaysta ah ee guurkeeda iyada iska leh waa xaqa ay leedahay gabadhu sidan filay idinkuna waad igu raacsantihiin orda israaca haddaanu saa u hadal waxaa la odhanayaa ninkani maba difaaca xuquuqaha haweenka mar walbana waan difaacayaa xuquuqda ay dumarka leeyihiin xaq baana u leeyihin dhacdadanoo keliya maaha dhacdo